salaysan saldhig adag oo labada dhinacba ah waa Ruushka iyo Ukraine ay ku qanci karaan isla markaana xaqiijisa ee xuquuqda dhammaan dhinacyada ay u baahan yihiin ama leeyihiin kadib hadallada Putin madaxweynaha Ukraine ee Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa X ama Twitter-ka waxa uu ku qoray hadii ay yihiin calaamado dhab ah oo muujinaya rabitaan dhab ah oo lagu dhameynayo dagaalka waliba si sharaf leh in loogu helo nabad waarta Ukraine waxay markasta xaqiijinaysaa diyaar u ahaanshaha kulan heer hoggaan ah mar waliba waa tahay markana aynu xagga Afrika u wacno warbixin cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in shameelood meel dadka Afrika ama Afrikaanka ah ay soo wajahday gaajo daran sanadii 2024 war arrimahani ku aadan waxa inoo haya oo soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise natiijooyinka warbixinta qaramada midoobay ee sugnaanta cuntada iyo nafaqada ee adduunka sanadka 2025 ayaa shaaca ka qaaday in qaaradda Afrika ay weli tahay meesha ugu daran adduunka ama gobolka ugu daran ee dadka ay ku saameeyeen gaajada sanadkii 2024 warbixintan oo ay soo saareen 5 hay'adood oo qaas ah oo hoostaga qaramada midoobay ayaa diiwaan geliyay in dadka Afrikaanka ah ee wajahaya gaajadu ay dhaafeen 20% sanadkii 2024 taasi oo ka dhigaysa 307 milyan oo qof tirakoobkan ayaa muujinaya in dadka Afrikaanka ah ee la daalaa-dhacaya gaajadu ay yihiin ku dhawaad kala bar dadka caalamka oo dhan la ildaran gaajada sanadkii 2024 kuwaas oo tiradoodu ay gaaraysay 673 milyan oo qof sida lagu xusay warbixinta boqolkiiba dadka adduunka ee la kulmay gaajada ayaa hoos u dhacday 8.2% sanadkii 2024 marka la barbar dhigo 8.5% sanadkii 2023 iyo sidoo kale 8.7 sanadkii 2022 isbeddelka hoos u dhaca ah ayaa lagu qiyaasay inuu u dhigmayo 15 milyan oo qof marka la barbar dhigo sanadkii 2023 halka 22 milyan ay dhintay marka la barbar dhigo sanadkii 2022 inkasta oo heerka gaajada caalamku uu hoos u dhacay haddana gaajadu waxa ay kor u sii korortay inta badan Afrika iyo sidoo kale galbeedka Asia iyada oo heerkaas gaajaduna ay gaartay 12.7% taasi oo dhiganta in ka badan 39 milyan oo qof warbixintu waxay sidoo kale xustay in inkastoo hoos u dhacan yahay mid horumar muujinaya haddana tirakoobyadu wali ay sareeyaan marka loo eego xilligii ka horeeyay COVID-19 waxaa hoos u dhacay xooliga yar ee sugnaanta cuntada iyada oo loo aaneynayo inuu yahay sicir bararka iyo sidoo kale qiimaha cuntada oo kor u kacay sanadkii la soo dhaafay warbixintu waxay saadaalisay in 512 milyan oo qof ay ku sii sugnaan doonaan xaalad gaajo ah marka la gaaro sanadka 2030 ku dhawaad 60% xulashada wararka oo subaxnimadan si toos ah kaga imaanaya stuudiyaha labaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha bulshada ee kala duwan sida Facebook, YouTube, Twitter iyo waliba Telegram-ka warbixino qoraal ah faalooyin iyo waliba macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan oo aad ka dheehan kartaan barta aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa tahay markana aynu xagga Gaza u weecanno telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in taliyaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir uu ku hanjabay inuu iscasili doono sabab la xiriira khilaafka u dhaxeeya hoggaanka siyaasadda iyo kan amniga xiisadu waxay gaartay heerkii ugu sareeyay ahna taliyuhu uu ku baaqay in hoggaanka siyaasadeed ay gaaraan go'aano cad oo qeexaya mowqifka xukuumadda Israa'iil Zamir ayaa la sheegay inuu aaminsan yahay in xukuumadda Netanyahu ay diyaarin doonto ama haatan ay qorsheynayso feerar lagu eedeynayo sida midkii lagu sameeyay taliyihii hore ee ciidamada Israa'iil Herzi Halevi si loogu eedeeyo inuu ka mas'uul yahay in aan la gaarin yoolalkii Gaza laga lahaa dhanka jiidaha hore ee dagaalka hadii aynu eegno kooxda Al-Qassam ayaa baahisay muuqaalo muujinaya qarxinta miinooyin dhulka la dhigay oo lala beegsaday baabuurta ciidamada gumeysiga Israa'iil kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka Al-Batan Al-Samin ee koonfurta galbeed ee Khan Yunis ku yaala oo koonfurta marinka Gaza ah muuqaalo kale ayaa sidoo kale la baahiyay kuwaasi oo muujinaya duqeymo lagu beegsaday saldhigyo iyo ciidan Israa'iili ah oo ku sugnaa jiidaha duulaanka ee Khan Yunis iyadoo la isticmaaliyay gantaalo iyo sidoo kale martaalo dhanka diblomaasiyadda ee arrimaha Gaza hadii aynu eegno madaxweynaha Finland Alexander Stubb ayaa sheegay in isbeddelka ku wajahan aqoonsiga dowladda Falastiini ah uu sii xoogeysanayo kadib hadallada ka soo yeeray Faransiiska, Britain iyo Canada
waxa intaasi ku daray in aqoonsiga dowlad Falastiini ah uu yahay go'aan madaxweyne balse uu u baahan yahay soo jeedin ka timaada golaha wasiirada ee dalka Finland haddii taasi la helana uu ansixin doono. isla wararka Gaza madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in duulaanka Israa'iil ee Gaza uu yahay mid uusan xitaa la mid ahayn ama mid aan la mid ahayn wixii ka dhacay xiriirka Naasiga isagoo xusay in dambiyadaasi ay si toos ah uga dhacayaan adduunka casriga ahna uu daawanayo iyadoo aan wax tallaabo ah laga qaadin. Erdogan waxa uu sidoo kale sheegay in beesha caalamka ay saaran tahay mas'uuliyad akhlaaqeed iyo mid bini'aadantinimo si loo gaaro xabajoojin degdeg ah oo ka dhacda ee Gaza loona suurtageliyo gaarsiinta gargaarka bini'aadantinimo ee dadka rayidka ah ee Gaza ku go'doonsan. dhanka Washington ee hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa warqad u diray madaxweyne Donald Trump iyaga oo ku yiri warqada waxaan u baaqaynaa in si degdeg ah dib loogu bilaabo wada hadallada si loo joojiyo dagaalka Gaza ka socda dagaalkaasi oo sababay musiibo bini'aadantinimo oo qoto dheer iyo xasilooni darro juqraafiyadeed. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri waxaan aaminsanahay in yoolalkii asaasiga ahaa ee dagaalka Gaza horey loo gaaray si socoshada dagaalka Gazana waxay khatar u tahay kordhinta xiisadaha gobolka iyo musiibo bini'aadantinimo. dadka reer Gaza waxay wajahayaan gaajo waxayna si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar ballaaran. waxaan ku baaqaynaa in xabad joojin rasmi ah ee laga dhigo hadafka koowaad ee diblomaasiyadda. waxaan diidnay qorshe kasta oo lagu barakicinayo si qasab ahna dadka reer Falastiin ee Gaza. tani waa fursadaada si aad u fuliso ballanqaadkaagii ahaa in la joojiyo dagaalka Gaza lana soo celiyo xasiloonida halkaasi ka jirtay. markana xagga Israa'iil aynu u jaleecno waxa soo baxay war weyn oo ku aadan saameynta dagaalka uu ku yeeshay dadka Israa'iiliyiinta ah kuwaasi oo cabsi ka qaba in dibadaha ay u socdaal tagaan ama u safraan. ra'yi ururin uu sameeyay telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxay muujisay in 56% dadka Israa'iiliyiinta ah ay ka baqayaan inay u safraan dibadda sababo la xiriira dhaleecaynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Israa'iil. aynu ku laabano arrimaha Gaza xarakada Xamaas ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uusan ka daalaynin ku celcelinta eedeymaha iyo been abuurka Israa'iil ee ku saabsan in Xamaas ay booto gargaarka iyadoo oo carabka ku adkeysay inaysan iyaduna ka daalaynin diidmada iyo beeninta arrimahaasi ama eedeymahaasi loo jeedinayo. xarakadu waxay sheegtay in eedeymaha Trump ay yihiin kuwo been ah oo hore u beeniyeen ama u beenisay qaramada midoobay iyo baaritaan gudaha ah oo ay sameysay hay'adda USAID ee Mareykanka leedahay. Xamaas waxay sidoo kale tilmaamtay in gaajada iyo dabargoynta ka socota Gaza ay si toos ah uga dhalatay siyaasadda gumeysiga oo Mareykanku uu taageerayo. bayaan ay soo saartay Xamaas waxay ugu baaqday Washington inay cambaarayso godoominta Gaza ka jirta joojiso gaajaysiinta shacabka kana fogaato u helinta Israa'iil isla markaana aysan ku eegin xaaladda oo kaliya indhaha Israa'iil. xarakadu waxa ay sidoo kale ku baaqday in la hubiyo in gargaarka la marsiiyo qaramada midoobay halkii laga marin lahaa hay'adaha bini'aadantinimo ee Gaza ku sugan. dhinaca kale Xamaas waxay ku baaqday in hadda soo socota loo asteeyo maalin qaran, maalin carbeed iyo mid islaami ah iyo sidoo kale mid caalami ah oo lagu garab istaagayo Gaza, Qudus, Al-Aqsa iyo maxaabiista. iyadoo oo dagaalka dabargoynta ah ee gaajaysiinta ah ee lagu hayo dadka reer Gazana uu wali yahay mid halkiisii ka sii socda. xarakadu waxay sidoo kale ugu baaqday dadka xorta ah ee dunida inay kordhiyaan kacdoonka shacabka maalmaha Jimcaha, Sabtida iyo Axadda ee toddobaad kasta ilaa la joojiyo gardarrada iyo macaluusha ka jirta Gaza ee go'doonsan. Xamaas waxay ku adkaysay in shacabka ku sugan marinka Gaza wali ay wajahayaan dagaal dabargoyn ah oo ballaaran kaasi oo gaajo loo isticmaalayo sidii hub dagaal oo lagu jabinayo adkeysigooda dadka reer Gaza. Khamiistii Xamaas waxay ku xaqiijisay inay diyaar u tahay ama diyaar u ahaanshaheeda ku aadan in si degdeg ah mar kale wada hadallo dib loo bilaabo haddii gargaar la gaarsiiyo kuwa u baahan lana soo afjaro macaluusha baahsan ee dadka reer Gaza haysata. bayaan kale oo ay soo saartay ayaa xarakadu waxay ku sheegtay in wada hadallada ay macno beelayaan haddii ay sii socdaan iyadoo ay jirto gaajaysiinta lagu hayo shacabka reer Gaza iyo go'doonka ay wajahayaan gaar ahaan kadib markii Israa'iil ay ka baxday wada hadallada iyadoo aan sabab sheegin ama sabab ay uga baxday wada hadalladaasi aysan sheegin.
waxay sidoo kale ugu baaqday beesha caalamka xarakada Xamaas in si degdeg ah shuruud la'aan ahna ay ugu dadaalaan gaarsiinta cunto dadka reer Falastiin iyo la sugo badbaadadooda goobaha gargaarka lagu bixinayo goobahaasi oo hadii jeer baa si maalinlaha Israel ugu beegsato dadka Falastiiniyiinta ah ee gargaarka doonanaya